weligaa ma is weydiisay maxaad ugu eeg tahay waalidkaaga? Heredity waa gudbinta astaamaha ay waalidku u soo gudbinayaan carruurtooda. Sidan sawirka inooga muuqata, waxaynu ku arkaynaa aabbo dhaga waaweyn in uu u soo gudbiyey wiilkiisa astaamihii uu isagu lahaa. Haddaba, waa maxay traits astaamaha aynu waalidka ka dhaxlayno? Si yaroo faahfaahsan baan insha Allah u sharixi doonaa. Waa maxay astaamaha aynu waalidka ka dhaxlayno? 1. Midabka timaha, dhererka, iyo welibana midabka jidhka. Intaasoo dhanba waxaynu ka dhaxlaynaa waalidka. Dhinaca ayda iyo xayawaan kalena waxaa ka mid ah waxay kala dhaxlayaan dabada dheer ama dabada gaaban, sidoo kale dhagaha dhaadheer ama dhagaha gaagaaban, iyo welibana nooca sankooda. Astaamahan aan waalid ka dhaxlayn waxay noqon karaan kuwo dominant oo muuqda ama kuwo recessive ah oo qarsoon. Astaamaha mid ka mid ah xagga hooyo ka imanaya, midna wuxuu ka imanayaa xagga aabbo. Dominant waxaynu odhan karnaa marka uu hal gene koobigiisu uu present yahay, oo saddexdaa hores waa dominant alleles kuwa muuqda. Xagga ay xabadda ugu dambeysana ay tahay recessive allele oo ah astaamaha u qarsoon.